kusoo dhawow janaalkayga khulaasay fadlan waxaa si xushmad la kaaga codsanaya haddii aad janaalkayga ku cusubtahay inaad subscribe iyo saarto fiideoguna like ay saarto maanta waxaan khulaasaynaynaa filimka weynaa ee Deadpool iyo Wolverine waxaan rajaynayaa inaad nala gaari doonto ilaa iyo dhamaadka daawasho wacan filimkan wuxuu ku bilaabanayaa Deadpool oo qodaya qabriga Wolverine isla markii la falfaa Wolverine ayuu soo saaraya waxaana uu imaanaya ciidanka Bartocus ciidanka ayaa loo soo diray inay Deadpool gacanta ku soo dhigaan laakiin waa uu diidaya ayaga dhan wuu dagaalamaya halaal ayuu u dilayaa ilaa uu suxun u jijibiyo si aan u fahanay sheekada filimka wax dhan waxay bilaabatay markuu Deadpool bilaabay inuu waqtiyada dib ugu safro asigoon isticmaalaya time machine-ka si uu meelo badan u aado oo dad badan ula kulmaad waxaana tusaya March 14 2018 wuxuuna la kulmay Happy oo kamid ah hogaamiyaasha Avengers wuxuuna ka dalbaday inuu Avengers kamid noqdo laakiin Happy waa uu ka diiday wuxuu dhahay macquul ma in Avengers kamid noqdo sababta Avengers dadka ay badbaadiyaan waa isku soo laabanaya waxaana la tusay 6 bilood kadib inuu isbedel sameeyay oo timihii iyo wixii dhan iska hagaajiyay wuxuuna dib ugu laabtay shaqadiisa isla markii waxa arkayna asiga iyo familkiisa oo baawur wada saaran maameedkiisa ayuu dib iskaga laabtay saaxiibkiisa ayuu ku soo laabtay waa kan ayuu baaskiil wada asigoo mees taagan ayaa wuxuu arkay nin sawir ka qaaday ninka ayuu fiirinaya isla markii asigoo guriga soo galay wuxuu arkay surprise loo dhigay oo happy birthday-giisa ay eed asigana ma uusan kabar qaban isla markii farxad ayuu familkiisa la qaybsanaya markaas kadib waxa la gaaray waqtigii tortada waxa leeyahay tortada noo jar markii asigoo afuufay irida la soo gargaraacaya isla markii waa uu soo baxaya irida ayuu furaya wuxuuna arkay ciidan uu soo wiligiis arkay wuxuu leeyahay maxaartiin maxaan damacsantii maanta kala farxadeedu waa malis qasay ay taga mid ayaa gadaal ugu maana qorsagaara lagu qabaa isla markii tinta ayay ka jiidaan tinta burkada isla markii tinta ay ugu istaagayaan isla markii waa uu yaabaya meesha uu joogo markaas uu leeyahay maxaa meeshan aad joogto isla markii waxa loogu jawaabaya meesha aad joogtid ma taqaanid laakiin sana ku barayna keen soo raac waa la soo wadaya waxa la keenaya xarunta TVA lagu xukumay isla markii waxa la leeyahay xaruntan waa xarunteedii aniga ka taliyo waxa rabada ay sameeyeen Avengers ka dhiga asigana riidis waxa in Avengers kamid noqdo isla markii saasita waxa lagu tusay muuqaalada Avengers iyo Captain America isla markii Captain America ayuu salaan u saaraya ayuu ugu farxaya isla markii wuxuu isku soo jaray ka Thorman oo ayaa la leeyahay ka Thor waa kaas kale adiga waa isla markii waa uu farxaya farxad darteed aad ayuu isku gubad badan yahay waa uu soo orday isla markii markuu soo ordo kaamirada ayuu imaanaya kaamirada ayuu leeyahay maanta Avengers ay kamid noqdo farxsan isla markii kaamirada ayuu tastanaya Avengers darteed wax walba ayaa usman ayuu leeyahay isla markii waxna tusay asigoo armaajada markuu fur kadib isla markii wuxuu arkay suudkiisa gaduudka suudkana waxa uu gelinaya adaga garka markii uu soo labis kadib ayuu soo baxaya asigoo aad u farxsan ayuu wuxuu imaanaya ninka la yiraahdo Bartocus wuxuu leeyahay maanta aad iyo aad ayuu farxsanahay Avengers ayaa kamid noqon doona markaas la leeyahay yes maanta maalintaada waaye isla markii Bartocus ayuu ku leeyahay hadda maxaa ku qabtaa laakiin intaas inta la gaarin ka hor shaashadu wuxuu ka arkay caalamku ka imaaday oo burburayo isla markii Bartocus ayuu ku leeyahay waa maxay waxaan shaashada ka arkay iyo balanta sidaan ku jiro Bartocus ayaa dhahay hadii aad doonayso cidaada inaad dib ugu laabato caalamka inuu hagaago waxa rab ismay ciidanka Bartocus ayaa gadaal kaga imaanaya isla markii wuxuu leeyahay sidaan balanta ku jiro laakiin waa khiyaantay laakiin Mikael waan ka arsi doonaa isla markii waa uu qoslay madax ayuu koofiyadiisa gashanaya Bartocus ayuu wuxuu ku leeyahay balanta ayaa iga baxday laakiin Mikael time machine ayuu tuuray Bartocus ayuu madaxta soo gudfanaya time machine ayuu qaadanaya isla markii asigoo loo jeeday dhub dhaha isla markii Bartocus ayaa dhahay ninkaas halii soo qabto waatay dagaal ka dhacday oo ciidankiisa uu soo diray oo ciidanka dhan ololaayay hal ayuuna ciidankii dhan u dhamay isla markii waxaan la tusay asigoo raadinayo Wolverine asigoo Wolverine raadiyay ayuu la kulmaya Wolverine yaal badan mid kan ayuu wuxuu kula kulmaya kalaabka markaas uu leeyahay soo baxay soo raac Wolverine hadaata waxa lagu leeyahay naftaada igmad baas ee ka tag isla markii waa uu soo baxay hadana dhub ayuu soo dhaaya wuxuu imaanaya Wolverine kale oo joog meel hola Wolverine kan kalena waa mid xanaaqsan isla markiina uu la dagaalamay hadana uu soo baxaya wuxuu imaanaya meel kale oo kalaab wuxuu arkaya Wolverine oo hal ilaa isla markii Wolverine kan kale hadana uu ka tagaya wuxuu imaanaya meel kale wuxuu arkaya Wolverine kale oo mooto u imaanaya isla markii waa uu soo baxay hadana waxaan la tusay asigoo uu imaado Wolverine kale oo duqay oo laakiin kaligiis meel degan isla markii xabad ayuu beerku gelinaa wuxuu ku soo dhacay meel madaxay ay ka buuxaan isla markii waxa ku xiran meesha Wolverine isla markii hadana uu soo baxay wuxuu imaanaya Wolverine kale oo meel duur joogo laakiin meesha waxa jooga hoolka ayaan isla markii wuxuu ku dhifanayaa feer aad iyo xanuun badan oo faniin isla markii waxaan la tusay Wolverine yaasha dhan oo asiga jukeynayaan kana ugu daran kan ayaa suxun u midiyayna isla markii kan markuu midiyay kadib hadana waxaan la tusay asigoo dhub dhahayo Wolverine ka mootada soo aragnay dhahayo meesha maxaa soo doontay meesha ka tagay kale ku dilay isla markii wadida waa la feeraya isla markii Wolverine ilaa uu la kulmo Wolverine ka saxda ah Wolverine saxda ayuu ku leeyahay adiga ku soo doona waan boo iraacisa Wolverine saxda uu ku diiday gacmo birar kala soo baxay isla markii la soo baxay bisoolada ayuu qabanaya wuxuu leeyahay waan boo iraacisa adiga kalmaanta ku dilay isla markii waa loo qoslaa bisoolada waxa la safay uu qabo markii Wolverine wuxuu la soo baxay khamriga markuu caba kadib cabaar kadib uu soceli waa isla markii waa uu dhacay markuu dhac kadib markaas wuxuu leeyahay maskiin intaan leema aad waa uu soo baday wuxuu u keenaya Bartocus isla markii Bartocus ay wuxuu ku leeyahay Wolverine oo ku keen hoo waxaagna waa ku keenay caalamkayga burburin laakiin Bartocus ay ka diiday uu xanaaqay labadoodana uu baabiinay wuxuu u diray meel cidla ah isla markii ayagoo meesha cidla joogay Wolverine oo xanaaqsan ayaa asigana kor u qaaday isla markiina waa uu firfiraya dabada ayuu wuxuu ku shuraya birarkii markuu shuraya isla markii dhabarka ayuu ku jibinaya markaas kadibna dad ayaa dhahay dagaal ma isku haysa isla markii kaliya ayuu xabad kaga dhufanaya asigana uu taaseenaya markaas kadib Wolverine ayaa xanaaqaya oo dagaal diyaaraya isla markiina birarka ayuu la soo baxaya isla markiina waxa arkaysa Deadpool oo labadii biskoolad qabsanaya labadii biskoolad markuu qabsaday kadibna dagaalkooda ayaa meesha ka bilaabana isla markiina Deadpool xabada ayuu gamay xabada markuu gamay kadib Wolverine ayaa soo haaday si shabeel camal oo soo orday isla markiina wuxuu bilaabay inuu Deadpool soo ataagareeyo dagaalkooda ayaa sida ku socday ayagoo dagaalay oo wiliba isdilay oo zaad isku dilay ayaa Wolverine asigoo Deadpool dil wuxuu leeyahay sugsug ay dilin isla markii waxa arkaysa nin imaanay
ninkii ayaa dhahay way soo socdeen Red Bull ayaa dhahay miyaa soo socda anaga ma ogin cid soo socda markaas isla markaas kadib ciidanka ayaa imaanay ciidanka markay imaadaan kadib kii ayaa meesha ka soo degay isla markiina wuxuu iska qaaday xijaab markuu iska qaaday ninka wuxuu noqonay Captain America intuu san naqan Captain America kor isla markiina walaal ayuu isku bedelay hawada markuu gal wuxuu isku dayay inuu la dagaalamo hogaamiyaha ciidankooda laakiin hogaamiyaha ciidankooda waa nin awood badan isla markiina asaga dhinayo isku filqaya asagii holac dhulka ayuu ku soo tuuray web ayuu dhahayaa isla markii mid ciidan kamid oo qamardi ayaa wuxuu dhahay aniga ila dagaalami karo isla markii markuu saas dhoo kadib Wolverine ayaa dhahay aniga ayaa kula dagaalmay Wolverine ayaa dagaalan Wolverine ayaa isla markii qoorta ayuu ka jaray markii Deadpool ayaa yaabay wuxuuna arkay ninka qoortiisa oo dhulka waxay ku soo dhahday web isla markiina qoorta ayuu qabanay waxaan tabartiisa intaas waa isla markii ninka hogaamiye ayaa xanaaqay markaas uu leeyahay labada hal soo qabtay isla markii bir qabata ayaa loo isticmaalay labadoodna waa la isku soo dhijinay markii soo dhijiyay kadibna bir meesha taal ayaa labadooda waxa loo gelinaya wajiga isla markii ayagu war u heen meesha loo wada ayaa la isku soo wadaya markii la soo wada intii wadada la maray waxay dhahayaan intee noo la wada isla markii Captain America ayaa qoslay wuxuu leeyahay waxaan ila wada Cassandra Nova oo ah xiriirada magaalada dhanka taliska isla markii soo baxayaan meeshan gurigan oo antiman oo ay imaanayaan guriga markay imaadaan kadib isla markii waxaana la tusay ciidanka Cassandra Nova oo aad iyo aad u diyaarsan u ah inay wax walba ay burburiyaan isla markiina guriga ayaa ka qaadmay waxaana soo baxaysa Cassandra Nova markii ay soo baxday ay leedahay waaw safakiina soo ah soo dhawaad meeshan xaruntan nag taliyo isla markii Cassandra Nova ay jaranjarada soo deganaysa ayagoo sheekaysanaya ayaa Captain America warka badana wuxuu leeyahay aniga kuwan ma aqaan isla markiina way xanaaqaysaa maqaarka ayay ka dhigaysaa lafiisa ay dhulku daadana isla markii Wolverine ay dhahay waxas miyeelin naagta waa in la dagaalno Wolverine ayaa soo fakanaya naagta la dagaalayo roob isla markii Cassandra Nova ay weer ku soo qaada isla markii dhulka ayay gelinaysaa dhulka markay gelinaysaa asiga dhan dhulka ayay ku xariiqaysaa tabarta intaas waa ay leedahay wax muskaysa markii Deadpool ay soo jeesanaysaa hay'ad maxaas ku haysaa ay leedahay may oo leeyahay waa ka cabsana mana ku gaadi ee bilisiga qalay isla markiina way umaanaysaa gacanta ayay wajiga ka gelinaysaa markay dadka wajiga gacanta ka gelisay xasuushadooda ay ogaatay waxyaabaha damacsan iyo fikradoodii wax walba qalbigooda ayay gashay isla markiina waxay ogaatay fikradiisa wuxuu damacsan yahay qofku jecel yahay intaas markay ogaatay kadib Wolverine ayaa gadaal ugu imaanaa gadaal ayuu wuxuu ka gelinayaa gacmihiisa birarka markuu ka geliyo kadib way qoslaysaa tabarta intaas miya ay leedahay asigna ay iska filqaysaa intaas kadib waxay imaanaa sixirkii weynaa ee afka oo qaac lahaa sixirkaana mar haddoo imaado xaafadda dhan iyo magaalada dhan ayuu burburinayaa dadkii dhan way kala cararayaan markay cararaan kadib intaas kadibna Wolverine oo badbaadinaysa ayaa soo baxay wuxuu imaanaa mashiinkan ayuu imaanaa uu gargaraacaya lugta ayuu ku gargaraacaya maatana soo ushid maashidintid isla markiina waa uu shidmaya uu duulaya markuu duul kadib isla markii Deadpool ayaa gadaal ka qabsanaya labadoona saas ay ku duulayaan isla markii ay soo duulaan waxay ku soo dhacayaan caalam kale oo la kaseen caalamka markay ku soo dhacaan kadib waxay arkayaan Deadpool eegiisa oo soo orday Deadpool kadib eega markuu arkay eega ayuu habsiinay markaas ayuu arkaya firshin kale oo asiga oo caalamka ku nool markaas wuxuu leeyahay eega adima wadaha markaas uu leeyahay wadano tilmaam isla markiina eega ayuu dib ugu naqsanaya markaas uu leeyahay baabuurkayga qaatay iska bax baabuurka ay soo qaadanayaan ayagoo magaalada soo maray oo soo socda ayaa markaas ay sheekaysanayaan markay sheekaysan kadib Wolverine ayaa u bagi waayay sheekada Deadpool markaas uu leeyahay adima xad macsantaa markaas uu leeyahay aniga familkayga badbaadiyaa waa caalamkooda ayaa la burburinaya sidaas ayaa adigana ku soo afduubay oo Bordeaux ku geey Bordeaux waa khiyaamay markii Wolverine ayaa qoslaya markuu qoslay kadib Deadpool ayaa xanaaqa wajiga ayuu feer kaga dhufanaa markuu ku dhuftay Wolverine ayaa si xanaaqa Wolverine markuu xanaaqa sigin feer ku dhufanaa dagaalkooda ayaa meesha ka bilaabanayo suxuna ay isku dagaalayaan zaid ay isku dagaalayaan hatta raadiyaha ayuu madax ugu dhufanaa kadibna caadi isku feeraan markay is feeraan kadib Deadpool ayaa caloosh gacanta birta la geliyaa markuu xanaaqa sigin uu feeriyaa isla markiina ayaga dagaalkooda ayay wadaan dagaalkooda inta socda ayaa waxa imaanaysa X23 oo X-Men kamid ah ayagana waa ay daadaalin isla markiina waa ay wadaysaa waxayna geynaysaa xarunta X-Men waxaana jooga dhamaan ciidanka X waxaana kamid ah Blade iyo Gamblin iyo sidoo kale waxa jooga X23 ayaa joogto isla markii meesha ayay ku sheekaysanayaan dhamaantoodna waxay go'aan ku gaarayaan inay Cassandra Nova ay weerar ku qaadaan dhamaantoodna waa soo raacayaan hal baabuur ayay soo wada qaanayaan waxayna soo aadayaan dhankaas Cassandra Nova isla markiina Cassandra Nova ciidankeeda ayaa meel ka soo fiirinaya markaas waxay arkayaan baabuur iyo ciidan oo soo socdo ayaga dhankooda ku soo socdo isla markiina Gamblin ayaa Blade wuxuu dhiibaya hubka culus markaas wuxuu ku leeyahay hubkan kurd meesha burburi isla markiina hubka ayuu soo gamaya isla markii ciidanka Cassandra Nova ayaa cabaadayna badbaadi isla markiina hubka ayaa meesha ka soo dhacayo holac ayaa kacayo intaas kadib meesha holcaysa ay baabuurkooda ku soo jiiranayaan isla markiina dagaal ayaa bilaabanaya dagaal lagu baabaa ayaga dhan baabuurka ayay kasoo wada deganayaan waa in dagaalamayaan ciidanka Cassandra Nova ayaa ayagana zaid u dagaalamaya dagaalka intuu socdo kadib aad ayaa la isku xasuuqaya dad badan ayaa la dilaya markii intuu dagaalka socdo Wolverine iyo Deadpool ayaa baxaya waxayna aadeen dhankaas Cassandra Nova laakiin ciidanka ayaa waxa dhaay anaga meesha joognay iska bax isla markiina waxay u tagaan Cassandra Nova oo iska cabayso markiina Cassandra Nova ayaa soo istaagaysa markaas waxay leedahay markal ma soo laabateen dadka waa indila Deadpool ay cirka u diraadan dhulka u diray kadibna asiga dhan gees ayay ka dhax bixinaysaa isla markiina Wolverine ayaa xanaaqay asigoo gacan la soo aadin ay gacantiisa hoos u diraadan gees u diray isla markiina asiga dhan ay amal u fadhiisanaysaa kadibna waxay sameynaysaa madaxa farka gelin madaxa markay farka geliso asiga dhan xasuushadiisa ay ogaanaysaa iyo waxyaabo damacsan yahay wuxuu soo sameeyay qofku yahay isla markiina waxaana la tusay X23 oo wada koofida birta oo madax loo gelina Cassandra Nova oo aad u nacabta isla markiina xiriga ayaa lagu jiidaya boorsada laakiin meesha ay ugu tagaysaa boorsada ay meesha ka soo tuuraysaa boorsada isla markii waxa gacanta ku dhigaa Deadpool markuu gacanta ku dhigo koofida birta ayuu ka bixnaa wuxuu madax u gelina Cassandra Nova isla markii ninkii Cassandra Nova u shaqeynaya Cassandra Nova wuxuu ku dhufanaya xabad markuu ku dhufto kadibna asigoo jaakeena ayuu soo baxaya wuxuu leeyahay waa kaas waa ku dilay maxaa qaadaysaa meeshan anaa ka taliyo waxa taan malaka Cassandra Nova meesha ma ka tirsan isla markiina feer ayaa waxa ku dhufanaya Wolverine isla markiina Wolverine ayaa Deadpool ku dhaay koofida ka saar mar taabanayso markaas iyada waxay leeyihiin banaan laga qaadin inaan taabaneyn isla markiina hayay leedahay isla markii waxay waabanaysaa Deadpool uu isku naxaya markaas kadib ay ku leedahay aan idin taabanay walaalkay Jarles as taqaaneen dartiisa idinku cafinaya idinkan iska baxa isla markiina waxay gacanteeda ku sameynaysaa
imaanaysaa sixirka magaalada Kaasaare ee Dr. Strange markaas ayagu waxay ku leedahay waxa soo socda baalkii weynaa ee magaalada dhan baabiinaya isla markiina waa ay soo haadaya dhamaantood labadooda way soo ordayaan ayagoo soo ordaya xataa waxa arkaysa asxaabtooda oo la yaaban isla markiina meesha ay wax ka soo baxay isla markiina sida u jeedaan waxay ku soo dhacay magaalada Deadpool isla markiina waxa arkaysa Deadpool iyo saaxiibkiisa iyo familkiisa oo meesha taagan isla markii ilmihii riska ay waxay dhahan kaas Deadpool maano ha kaas Deadpool waa kaas Wolverine waa aad u farxay ilmaha isla markii waxaan la tusay ninkii Cassandra u shaqeynaa oo xabad ku dhifay oo khiyaana markaas waxay leedahay ka kaciya ku soo diray markaas oo leeyahay Bartkus ayaa soo diray isla markiina way soo bixaysaa Bartkus dhankiisa ay soo aadaysaa isla markii waa ay soo bixaysaa Bartkus ay u imaanaysaa ninkii u shaqeynaa wuxuu dhahay Bartkus waa la isku imaaday tiina way imaaday isla markii qorta ay ka jibinaysaa isla markiina way soo bixaysaa markaas waxay leedahay adigna muku dhaafay maanta isla markii sida caadada ah Bartkus ay wajiga waxay ka gelinaysaa gacmaha labadan kalena way tuuraysaa sida dhagax ama labadooda caad ay fadhiinayaan guriga ay ku soo dhacayaan isla markiina guriga ay ku soo dhacayaan isla markiina Bartkus ay jiidanaysaa waxayna la aadaysaa qolkiisa ama qaybta hoose oo mashiinada ay la aadaysaa isla markii waxaan la tusay Deadpool ayaa meesha meel dheer wuxuu ka arkayaa eegiisii uu jeclaa oo soo socda eega ayaa soo ordaya markuu eega soo socdo kadibna eega ay habsiinaya markuu habsiyo kadibna isla markii waxa imaanaa firshinkiisa labaad oo Deadpool oo dhahay raalin eega marka loo soo ordo isla markiina waxa arkaysaa Deadpool yaal far badan mid madax ee mid cunug yariis ee waxa arkaysaa mid waayeel waxa arkaysaa Deadpool yaal far badan oo isku jir niman inaagi ilmo isla markiina waxa arkaysaa inay xabada soo gamayaan isla markiina wuxuu iskaga dhigaa Deadpool ka kale ayuu baabiinaya xabadana iskaga dhigaya mar kale ayaa meesha uu ku maraya hadan xabada ayuu iskaga dhigaya isla markii meesha ayuu soo gelinaya hadan uu qaadaya mar kale ayuu hadan xabada iskaga dhigaya asiga ayuu baabiinaya ilaa uu ka dhinto ayaga marka eega Deadpool ay aad u jeceliin eega dartiis ay ixtiraamaan xabadaha ma soo gamayaan isla markiina ayaga ay xanaaqay dagaal ay bilaabayaan dagaalkan waxay la galaya Deadpool yaalkan faraha badan isla markiina aad ay la isku dagaalaya waa la dhameynaya isla markii waxa imaanaya Deadpool yaalka saaxiibka isla markii ninkan yaaba ay dhaan way fiirinayaan markoo maas iska qaad kadibna ayaga dhan way farxayaan wuxuu noqonayaa Deadpool saaxiibkiisa ayaga dhan way farxayaan waxayna bilaabayaan in dhamaantood ay boodboodaan farxad dartood aad ayayna farxayaan isla markii waxaan la sheegay Cassandra oo rabtay inay awoodeedii kordhiso caalamka dhan ee baabiiso isla markiina Deadpool yaa imaanaya intaas kadib Bartkus ay waxay ku dhahay naagta maxay damacsantahay maxay sameynaysaa markaas wuxuu leeyahay midii sheegay markaas leeyahay waa ku dilaa amno sheeg markaas wuxuu leeyahay naagta waxay rabtaa in awoodeedii kordhiso caalamka baabiiso taas intay dhicin in laga hortago ayaa la rabaa hadii kale anaga dhan waa noo dhamaato wuxuu leeyahay waxaa la rabaa qof naftiisa hore oo labada fiilo isku keeno oo xoogiisa isticmaalo isla markii Deadpool iyo Wolverine ayaa soo ordaya isla markiina waxay isku qabsanayaan aniga nafteeda hore aniga isla markiina Wolverine ayaa isku soo tiray adii ilmi iyo family ka dambeeyay laakiin ciidig dambeeyay isma ana nafteeda hore isla markiina asigoo hore inuu naftiisa hore waa la feeriyaa isla markiina meesha ayaa laga bixiyaa isla markiina Deadpool ayaa isku dayay inuu asiga naftiisa hore isla markiina Deadpool ayaa meesha dhexda ka xirinaya isla markiina wuxuu leeyahay naftiisa hore Wolverine ayaa xanaaqa meesha ayuu soo feeriyaa Deadpool ayaa baxay wuxuu isku dayay inuu naftiisa hore meesha ayuu feeriyaa isla markiina wuxuu soo bixinaa fiilada markuu soo bixi wuxuu rabaa inuu fiilada kale isku keeno labada fiilana isku keeno ayuu rabaa laakiin tabartiis way gaari isla markii Wolverine oo rabo inuu soo galay meesha soo buusa isla markiina wuxuu isku dayay inuu soo galo isla markiina asigoo 2% ma soo gaarsiinaya tabartiis intaas ay naqanay isla markiina Wolverine ayaa dhinac ka soo galay Wolverine ayaa awoodooda dhan isku keenay labada dhinac ay soo jiidaan Wolverine xataa dharka ayaa ka faniinaya ibrarka isla markiina xoogooda iyo tabartooda ay isticmaalayaan waxay gaarsiinayaan 4% isla markii soo jeedid korkooda ayaa waxa ka soo baxay hole isla markiina waxa arkaysaa Cassandra inay awoodeeda dhan isticmaalayso isla markiina waxa la tusay Wolverine oo fikiraya oo familkiisa iyo qoyskiisa ka fikiraya hadii lacala uu dhinto fikir dheer ayuu nagalaya isla markii Deadpool ayaa asigana wuxuu ka fikirayaa familkiisa waxaas ama dhimata ayuu sidii asigana waa cabsanaya isla markiina wuxuu fiirinayaa sawirada familkiisa waxaas asiga ka fikiraya arkaysa isla markiina awoodooda dhan ay isticmaalayaan awoodooda dhan ay isku geenayaan say wadan isla markiina 100 ay gaarsiinayaan 100 markay gaarsiiyaan meesha dhan ay qarxis Cassandra meesha ay ku dhimanaysaa isla markiina ayagoo caafimaad qaba ay meesha ka soo baxayaan Bartkus ay dhaashay ku noolaateen markaas waxay leeyahay labadan xoogada isku geena anaga maxay naga dhibaysaa halkaas nag ma ku aad weyn ana meesha ayuu ku dhamaad hadii intaas aan la soo gaartay aad iyo aad u maasanta filkan meesha ayuu ku dhamaad waxa ka cusubnaa in channelkii subscribe ay saarto videogna like saarto aad iyo aad u maasanta filka iyo filin kale khayr badan